بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو وناكسن داوديال ميل كستو آد كسوغنتيهين waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo waliba barnaamijkii dhacdooyinka la yaab kalaha ee telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan dhacdooyinka waxaanu ku soo qaadanaa xubno xiiso badan oo aan isleenahay waxaad ku raali galinaysaan daawadayaasha ku xidhan TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan daawadayaasha xiiseeya barnaamijkan dhacdooyinka la yaab kale habeenkan caawa ama toddobaadkani barnaamijka waxaan idinku hayaa xubno aad u xiiso badan oo aan si gaar ah idinku soo xuray dhacdooyinka aynu ku soo qaadan doono barnaamijkan haddii aan hal iyo laba idii dul maro ayaa waxaa ka mid noqon doona nin buugan dhacdooyinka la yaab kale raba inuu kaga qayb galo dhacdo ah in uu diyuurad jiido xajmigeedu aad u weyn yahay nin isagu isna raba in uu soo bandhigo dhacdo ah in uu inta uu seef afkiisa galiyo dabadeedna seeftaasi uu ku qaado culays gaaraya 20 kilogram waxaa kaloon daawadayaal aynu ku soo qaadan doonaa intaan barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale ee telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku guda jirno nin isna World Genius Recordka ku soo bandhigay dhacdo ah in uu carabkiisa ku qaado culays gaaraya 11 kilogram carabkiisu dhexda ayaa uu ka daloolaa dhacdooyinkaas iyo waliba kuwa kale aad u xiiso badan ayaan nus saaca soo socdo daawadayaal aad ka dheehan doontaan shaashadaha telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada aan soo qabto dhacdada ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale iyo toddobaadkan aynu soo qaadano nin soo bandhigay dhacdo aad u cajiib badan dhacdadan ayaa waxay tahay nin jiidaya diyuurad aad u xajmigeedu u weyn yahay haddaba ninkan ayaa World Genius Recordku waxa uu ka rabaa ama shuruudda ninkan laga rabo waxa ay tahay in uu jiido diyuuradaasi مسافة قاريسة 25 متر أما 25 طلاب dhacdada ugu horeysa ee barnaamijkeena dhacdooyinka way xubintaan markan idii soo wada ee daawasho wanaagsan dhacdadan ayaa waxay ka dhacday wadankaasi Talyaaniga ninkani waxa uu rabaa inuu buugan dhacdooyinka la yaab kale in uu kaga qayb galo oo uu soo bandhigo dhacdo khatarteeda leh dhacdadani ayaa waxay tahay inuu jiido diyuuradan uu xajmigeedu weyn yahay haddaba ninkan waxa laga rabaa in uu diyuuradani jiido masaafo gaaraysa 25 mitir ama 25 talaabo waa dhacdo khatarteeda leh bal isku dayga ninkani himiladiisan ah inuu diyuuradan xajmigeedu weyn yahay in uu jiido ayaynu eegi doonaa ee daawasho wanaagsan 3 2 1 go è andato tutti i bambini all'ascolto alla visione fanno un tifo infernale per questo omone grande e grosso dalla faccia buona però penso che il suo avversario francese questa sera si sia fatto valere mi sembra che lo spunto di Zidruna sia ottimo cosa dici Davide tu che sei dal vivo sì lo spunto è ottimo ma devo dirti che Etienne mi ha dato sidaad arkaysaan waxa uu ku guda jiraa diyuuradan jiiditaankeedii bal aynu eegno in masaafadaasi loo qabtay in uu dhammaystiro in kale Etienne mi ha dato l'impressione di essere partito più veloce rispetto a Zidruna fermate l'aereo per favore stavo andando con 48 secondi e 97 centesimi ha stabilito un nuovo Guinness ragazzi possiamo dirlo è un Guinness World Record grande Zidruna non ci delude mai dhacdadan ka dhacday wadankaasi Talyaaniga ee ninkani soo bandhigay ayaa waxa uu ku guuleystay
in uu buugga dhacdooyinka la yaab kale kaga mid noqdo in uu diyuuradan jido masaafo gaadhaysa 25 mitir. himiladiisii ayaa u suura gashay, sidaasna waxa uu kaga mid noqday dadka lagu kaydiyo ee ku guulaysta inay helaan abaalmarinta uu World Genius Record ku bixiyo. aynu intaasi kaga nimaadno dhacdadaasi aadka u xiisaha badnayd. si fiican baad uga dhugateen inuu ninkaasi gaadhsiiyey masaafadii loo qabtay, sidaasna waxa uu ku galay World Genius Record-ka. dhacdada inoogu xigta ee aan toddobaadkan ku soo qaadanayna waa dhacdo aad u xiiso badan isla mar ahaantaana leh khatarteeda. ninka dhacdadan matalaya ayaa amaba soo bandhigaya ayaa isna waxa uu rabaa inuu World Genius Record-ka kaga qayb galo, in uu seef inta uu afkiisa iska geliyo oo uu hungurigiisa ka dhaadhiciyo dabadeedna uu ku qaado culays gaadhaya 20 kilogram. waa dhacdo khatarteeda leh. daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka ay halkan ka daawadaan, bal dhacdadan ayaynu eegi doonaa ninkani sida ay ugu suurta gasho. waxaa laga rabaa marka uu mididaasi afka iska geliyo dabadeedna uu culayskaasi ku qaado in uu 5 daqiiqo uu ku hayo. bal waxaynu eegi doonaa isku dayga ninkan iyo waliba inay wax halisi kala soo daristo. dhacdadanna aynu fiirino. I'm going to attempt to swallow this sword all at the hilt all the way down to my teeth. Then I'm going to attempt to lift up 20 kilos and hang that on top of the sword. Now, if anything goes wrong, guys. dhacdadanna waxaynu ku soo qaadanaynaa ninka lagu magacaabo Mati. waxa uu rabaa inuu World Genius Record-ka kaga qayb galo dhacdo khatarteeda leh. waa dhacdo qeyrul caadi ah. dhacdada uu soo bandhigayo ninkani Mati lagu magacaabo ayaa waxay tahay daawadayaal sidaad arkaysaan mididan uu haysto ama seeftan uu haysto ayaa uu rabaa in uu hungurigiisa ka dhaadhiciyo dabadeedna uu ku qaado culays gaadhaya 20 kilogram. bal waxaynu eegi doonaa isku dayga ninkani. daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah ee ay ka daawadaan halkan. ninkan ayaa haddaba waxaa laga rabaa marka uu mididaasi afkiisa ka dhaadhiciyo ee uu ku qaado 20 kilogram in uu 5 daqiiqo uu halkaasi ku hayo culayskani. bal isku dayga ninkani inay wax dhibi ka soo gaadhaan in uu guulaysto intaba waynu jaleeci doonaa ee daawasho wanaagsan. What he gets a record for is then lifting up this bag of potatoes, 20 kilograms, putting the ring over the top of the sword, and as soon as he moves his hands away, he needs to hold it there for 5 seconds. 5 seconds, Matty. Yes, That's what we love. His own limits tonight are going to be absolutely tested as we get set to make Matty Blade do his thing. Took us, Matty. Okay, Matty. Chris is here. Time, Matt. He's here to time it, Chris. I'll let you collect your thoughts and start when you feel you're ready. I've changed my mind. All right, okay. Silence, please. He needs maximum concentration for this. Now that is the real deal. Solid steel. On goes the weight. Hard to hold by the hand. 1, the clock started. 2, 3, 4, 5. He's done it! Matty Blade, fascinated with Parkinson sword since he was 6 years of age, has put himself amongst the world's best. Now in the Guinness World Record, setting a precedent like Matty. You've never gone to 20 kilos. What was it like sitting there in your stomach, that enormous blade? I'm just kidding. Yeah, it was incredible. Yeah, it's like, wow, that was intense. You've trained for many years to do this. It first needs to be officially checked off by our adjudicator, Chris. Does it meet all the criteria? No, that was absolutely amazing and just a little bit sickening. And Matty gets a new Guinness World Record. Congratulations. Well, it may not be sunken treasure, but it is gold. ninka lagu magacaabo Mati daawadayaal sidaad arkayseen waxa uu ku guulaystay in uu mididaasi inta uu liqo dabadeedna uu ku qaado culays gaadhaya 20 kilogram. waxaanu ka mid noqday dadka la yimaada dhacdooyinka aan caadiga ahayn, sidaasna waxa uu kaga mid noqday World Genius Record-ka dadka laga diiwaan geliyo.
for setting a precedent on Guinness World Records. Thank you very much. aynu intaasi dhacdadaasi kaga nimaadno. Thomas nin lagu magacaabo ayaa soo bandhigay dhacdo khatarteeda leh. dhacdadani uu ninkan Thomas leeyahay soo bandhigay ayaa waxay tahay in uu carabkiisa ku qaado culays gaarayo 11 kilogram. carabkiisa intuu dhexda ka dalooliyay ayaa waxa uu rabaa inuu bir yar inta uu sugo dabadeedna uu culayskaasi ku soo qaado. bal ninkaasi wax khatar ma ka soo gaari doonaan isku daygiisaasi. daawadayaal waxaanu idinka digaynaa mar labaad in aad isku daydaan dhacdooyinka khatarta badan ee aad ka daawataan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. bal dhacdada ninkan lagu magacaabo Thomas aynu fiirino. Next up, we've got Thomas Blackthorne. Thomas, Hello. thanks for coming on the show. Now, explain to us what you're going to be lifting tonight. That's 11 kilos. 11 kilos. Okay. Now, I hate to ask you this, but what are you going to use to lift it? Your tongue. My tongue. Right. Okay. Thomas ayaa lagu magacaabaa ninka dhacdada khatarta badan soo bandhigaya. ninkani ayaa waxa uu rabaa in uu soo bandhigo oo World Guinness Record-ka ku soo kordhiyo dhacdadan oo aan hore looga dhigin. waxa ay tahay in uu carabkiisa ku qaado culays gaaraya 11 kilogram. waa dhacdo khatarteeda leh in qof bini'aadan carabkiisa uu ku qaado culays intaas leeg. carabkiisa ayaa uu dalooliyay oo uu rabaa inta uu bir yar geliyo dabadeedna in uu ku qaado culayskan isagu dhulka yaala ee 11 kilogram ah. bal waxaynu eegi doonaa Thomas iyo isku daygiisani in ay u suurta gasho. daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kala ah. Thomas, in your own time, go ahead. Down. Honestly, that was probably one of the most painful things I think I've ever seen in my life. But yes, how was it for you? I'm speechless. Yes, okay. You keep your tongue inside. It's still there, isn't it? Good, thank goodness for that. Stuart, can we just confirm you were happy with that? Yep, no problem. Okay, well, I can confirm that, Thomas, you have done it. That's a brand new Guinness World Record. si fiican ayaa daawadayaal u daawanayseen ninkaasi lagu magacaabo Thomas iyo isku daygiisaasi uu soo bandhigay ee ahaa inuu carabkiisa ku qaado culays gaarayo 11 kilogram. ninkan Thomas lagu magacaabo waxa uu ka mid noqday dadka la yimaada dhacdooyinka aan caadiga ahayn waxaana laga diiwaan galiyay buugga lagu qoro dadka la yimaada dhacdooyinka cajiibka badan ee World Guinness Record-ka. aynu aadna wadankaasi Talyaaniga dhacdooyinka lagu soo bandhigo mid kamid ah aynu soo qaadano. nin u dhashay wadankaasi Talyaaniga ayaa isna World Guinness Record ka doonaya in uu kaga qayb qaato oo lagaga diiwaan galiyo oo uu ku helo abaalmarinta uu buugani bixiyo dhacdo ah in uu xarig masaafadiisu gaarayso 100 mitir uu ku dul socdo oo labadiisa cagood oo qulay isagoo adeegsanaya uu koro xarigaasi oo kor u bixi doona. bal ninkaasi in uu ka dhaco xarigaasi in uu kaga rumeeyo himiladiisaasi ah in uu ku dul socdo oo dhamaystiro oo uu dhacdadana ku guuleysto ayaynu eegi doonaa. ninkan u dhashay wadankaasi Talyaaniga ayaynu dhacdadan ku soo qaadanaynaa. waxa uu rabaa inuu soo bandhigo dhacdadan oo ah inuu xarig ku dul socdo gaaraya 100 mitir xarigaasi oo kor u kici doona.
daawadayaal waa dhacdo cajiib badan oo khatarteeda leh bal ninkan u dhashay wadankaasi Talyaaniga ayaynu eegi doonaa isku daygiisani inuu ku guuleysto birtan uu sito ee aad arkaysaan daawadayaal ayaa waxa uu ku ilaalinayaa miisaankiisu inaanu dhanna u ciirin bal isku dayga ninkani ayaynu jilleeci doonaa per questo tentativo, ma guarda, attenzione Jerry, lui è già partito, è posto a 28 metri di altezza, l'equivalente di un palazzo dal cavo, sono stati tirati un po' di più questi cavi laterali e addirittura la pendenza in quest'ultima parte è ancora di più. Mi sembra di più, sì. sidaad arkaysaan weli daawadayaal waxa uu ku dul socdaa xarigani bal aynu eegno inuu ka dhaco iyo in uu ku guuleysto oo uu gaadho boqolkaasi mitir. Linea i limiti umani, vedete che per salire praticamente oltre all'equilibrio deve letteralmente sfidare ad ogni passo la forza di gravità. Quanto manca? Quanto manca? Siamo agli ultimi 7-8 metri, Jerry, addirittura vedi deve spostare il peso in avanti per riuscire a sfidare la forza di gravità, il vuoto e anche la pendenza. Vedi che addirittura in quell'ultima parte, come ti dicevo lì, per riuscire a dare più stabilità al cavo, la pendenza è ancora superiore. Non puoi intervenire se non cercare di pulire il cavo. Ma Maurizio ce la farà, lui mi spiegava Ha avuto la presa. Attenzione, dai che manca poco, mancheranno 50 centimetri. Comunque già sì. Ok, è arrivato, però c'è una precisazione. Attenzione, bravo Maurizio. Bravissimo. ninka u dhashay wadankaasi Talyaaniga ayaa sidaasi ku galay oo lagaga diiwaan galiyay buugga lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha cajiibka badan isagoo xarigaasi ku dul socday masaafo gaadhisa 100 mitir ee loogu talagalay danna uga muudhicin waxa uu kaga rumeeyay himiladiisii sidaasna waxa uu ku helay abaalmarinta World Genius Record ku bixiyo. dhacdadan markan soo qabanaynaa waa dhacdo ka dhacday wadankaasi China nin u dhashay wadankaasi China ayaa soo bandhigaya isna oo keenaya dhacdo aan hore looga diiwaan galin World Genius Record-ka waxa uu rabaa inuu iska soo tuuro biyo uu dhererkoodu gaadhayo 550 mitir biyahaasi oo ah biyo durdur ah oo soconaya waxa uu rabaa inuu halkaas inta uu isku soo tuuro uu ku dhaco biyaha guntooda bal dhacdada ninkan u dhashay wadankaasi China iyo isku daygiisan ayaynu jaleeci doonaa markan daawadayaal. dhacdadan ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa daawadayaal dhacdo ka dhacday wadankaasi China. dhacdadani ayaa waxay tahay nin u dhashay wadankaasi China ayaa waxa uu rabaa inuu World Genius Record-ka kaga qayb galo dhacdo ah in uu iska tuuro biyahan dhererkoodu gaadhayo 550 mitir. dhacdadan ayaa waxaynu eegi doonaa bal ninkani inuu mawjadahani wax khatari ka soo gaadhaan iyo in kale ee aynu jaleecno. 张开双臂。哇！他真的跳下去了！一瞬间的事儿。冒出来了，他冒出来了，没事儿，他一点事儿都没有。哇，他游得还飞快！来，请您认证，是一项新的吉尼斯世界纪录。啊！开车了，恭喜你！哇，看到了，来进蘑菇关。ninkan u dhashay wadankaasi China ayaa waxa uu ku guuleystay inuu iska tuuro meeshan dhererkeedu dhammaan 550 mitir isaga oo biyahan ama mawjadani isku dhex tuuray sidaasna waxa uu ku galay oo uu kaga mid noqday dadka laga diiwaan galiyo buugga dhacdooyinka la yaabka leh. halkaad barnaamijkan dhacdooyinka la yaab kale kala socotaan waa telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland istuudiyihiisa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa. daawadayaal barnaamijkan wixii talo iyo tusaale aad haysaan waxaad noogu soo gudbin kartaan ciwaanada iyo nabarada shaashada idinka muuqda haddii aad haysaan dhacdooyin ku saabsan dalka gudihiisa iyo waliba haddii aad haysaan dhacdooyin kale oo ka dhacay wadamada dibadda halkan ayaad noogu soo diri kartaan.
mar kale aynu aadno dhacdo ka dhacday wadankaasi China. nin ayaa ku soo bandhigay dhacdo cajiibkeeda leh. dhacdada uu soo bandhigay ninkani ayaa waxay tahay inuu kuraas aad u badan uu isdul saaro dabadeedna uu xarakadu doono ku dul sameeyo iyadoon kuraastaasi dhanna ula dhacayn. waxa laga rabaa ninkani inuu 10 xabo oo kuraas ah uu isdul saaro oo kolba markuu xabad saaro uu xaraka sameeyo. bal waxaynu eegi doonaa muddo hal mida inuu 10kaasi xabadood isdul saaro inuu dhaafiyo intaba goobjoog baynu ahaan doonaa. aynu aadno dhacdadan ka dhacday mar kale wadankaasi China. dhacdadan kale oo ka dhacday wadankaasi China ayaa waxaynu ku eegi doonaa ninkan oo isna u dhashay isla wadankaasi China ayaa waxa uu soo bandhigayaa dhacdo ah in uu kuraas aad u badan uu dhakada iska saaro dabadeedna uu sidoo doono ugu dul dhaqdhaqaaqo oo uu xarakada uu doono uu ku dul sameeyo. haddaba World Genius Record-ka ayaa ka raba in uu muddo hal milida gudaheed isdul saaro oo uu xarakadu doono ku dul sameeyo 10 kursi. bal waxaynu eegi doonaa in uu ku guuleysto iyo in kale.那这里呢，还要特别提醒电视机前的朋友，我们现场的这些具有危险性的挑战项目都是有现场医生在监护的。也就是说，要提醒电视机前的朋友，千万不要在下面模仿，因为吉尼斯世界纪录的很多记录都是具有危险性的。是的，一定由专业人士和受过常年专业训练的人来完成。是的，这一点一定要给朋友们说清楚。现在已经落了有几把椅子了，1把、2把、3把、4把、5把了，是吧？哎，雪生，我要是落成这样，早就摇摇晃晃的了。已经有点摇晃了，实际上到了高处，摇晃是不可避免的。这个才是刚刚一半。现在是5把椅子，到了这个高度，它必须要系安全带，以保证这个安全。现在是5把椅子。So it starts counting down when he's on top of the 11th, right? Yeah. 当罗军在第11把椅子上做这个平衡动作的时候，我们的认证官 Marco 会开始给他计时，只要超过10秒，他的记录就创造成功了。下面就看他能不能在11把椅子上动作仍然是这样潇洒自如。好，现在准备再加椅子。sidaad arkaysaan daawadayaal waxa uu ku guda jiraa inuu kuraastani dhakada iska saaro isagoo kolba isku dul dhaqaaqo. 随着高度的累加，这个难度也是越来越大。又加了2把椅子。哇，已经晃得很厉害了啊！现在他每一个细微的动作都会引起整个这个椅子的不断的晃动。第8把，要胆大，还要心细，还要有经验啊！我现在非常清楚地看见罗军脸上的汗水已经流下来了。我真是替他捏着一把汗啊！我们连鼓掌的力气都要轻轻的，怕震着他。但是我们还是应该鼓一次掌，为他加一把油。加油！加油！好，第9把、第10把椅子也来了。我觉得现在把这个椅子送上去都已经很困难了。对，已经都没有那么长的杆儿了。
千万小心不要碰到他。现在那个第一高人已经比他逊色多了。现在是10把椅子了呀，还有1把。这项记录是不是会被载入史册 ？He did more than required. 40 seconds and 11 chairs. 哇！我们这个记录本来的要求是他在11把摞起的椅子上能够保持平衡动作，达到10秒就是记录。现在他做了40秒。好的，朋友们，一项由中国人创造的吉尼斯世界纪录就此诞生。ninkan u dhashay waddankaasi China ayaa sidaasi ku galay buugga lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha cajiibka badan waxaanu isdul saaray kuraas gaadhisa 11 kursi muddo 40 ilbiriqsi ah gudaheed iyadoo laga rabay inuu isdul saaro 10 kursi oo qura balse uu hal dhaafiyey isagoo oo waqtigii loo qabtay oo ahaa 1 minute gudaheed uu ka yareeyay oo uu ku gaarsiiyey muddo gaadhisa 40 ilbiriqsi sidaas ayaa uu ku galay buugga lagu qoro waxyaabaha cajiibka badan ee World Guinness Record-ka aynu intaasi kaga nimaadno dhacdadaasi cajiibka badnayd waxaan hadda idin soo qabanayaa dhacdada ugu dambaysa barnaamijkan dhacdooyinka la yaab kale ee telefishanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland lagu magacaabo Ben ayaa isna waxa uu rabaa in uu keeno oo soo kordhiyo dhacdo cusub dhacdada uu ninkani soo kordhinaya ayaa waxay tahay in uu xidho koorkaasi ayaa haddaba waxaa meel walba lagaga xidhay suun waxaana la rabaa inuu koorkaasi iskaga saaro waqti aad u yar waqtiga loo qabtay ninkan Ben lagu magacaabo ayaa waxay tahay 1 minute iyo waliba 21 second gudahood in uu iskaga furfuro labadiisa gacmood waa ay xidhan yihiin sidee buu talow iskaga furfuri doona waa mid aynu goob joog u ahaan doono dhacdada ugu dambaysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinkana aynu jaleecno dhacdadan daawadayaal waxaynu ku soo qaadanaynaa ninkan oo lagu magacaabo Ben waxa uu rabaa inuu buuggan lagu soo bandhigo waxyaabaha cajiibka ah inuu ku soo bandhigo dhacdo ah koorkan uu xidhan yahay ee aad arkaysaan daawadayaal inuu iskaga saaro waqti aad u yar koorkan waxaad arkaysaan inuu labadiisii gacmood ee uu iskaga furfuri lahaa uu ka xidhan yahay waxaad arkaysaan dhabarkiisa in suuman aad u tiro badan lagaga xidhay bal waxaynu eegi doonaa intay ku qaadato ninkani inuu iskaga saaro waxaase laga rabaa isaga inuuna ka badin ama uu iskaga saaro waqti gaadhaya 1 minute iyo waliba 21 second hadduu 1 minute iyo 21kaasi second dhaafiyo ma geli doono buugga dhacdooyinka la yaab kale laakiinse haddii uu ka yareeyo waxa uu geli doonaa buugga dhacdooyinka la yaab kale bal dhacdada ninka lagu magacaabo Ben uu soo bandhigayo ayaynu eegi doonaa oo aynu jaleeci doono That's as tight as it's going to get. All right, we're good. Okay, Ben, are you ready? When I say go, okay? 3, 2, 1, go. He's Australia's youngest ever illusionist. Turned pro at 10 years of age. He's now 22. This was developed for the criminally insane, impossible to get out of, they say. The newest jacket on the market. That's 2 extra straps and a loop around his arms that prevented him from lifting them over his head. He's done really 45 seconds. It's over his head. You're kidding. We're looking for 121. That's the record market.
was incredible. And breathe. It's too good. It was an amazing effort. As you said, the record was 1 minute 21. And Ben has stripped more than 30 seconds off that record with 15 seconds. You deserve a medal. In fact, we've got one eyes to it. The fastest man in the world to escape from a... ninkan lagu magacaabo Ben waxa uu ku guulaystay oo World Genius Record-ka ku galay in uu iskaga saaro koodhkan isagoo aan isticmaalin gacmihiisa wax kale balse si qasab ah uu iskaga saarayay waqti gaaraya 50 ilbiriqsi waxaana laga rabay inuu iskaga saaro 1 minute iyo 21 ilbiriqsi laakiinse waa uu ka yareeyay oo waqti aad uga yar ayuu koodhkaasi iskaga saaray sidaas waxa uu ku galay oo lagaga diiwaan galiyay World Genius Record-ka The fastest man in the world to escape from a straitjacket. Adding to his underwater escape. Great work, Ben. We'll see you. intaasi waxaa nagaga idil barnaamijkii dhacdooyinka la yaabka lahaa ee telefishanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland barnaamijkan daawadayaal waxaa inoogu sugnaa dhanka kamarada iyo lightinka Cabdi Cumar Jibriil oo isagu aalaaba heegan u ah sidoo idinku soo gudbin lahaa barnaamijkani anigoo Jamaal Axmed Naasir iyo waliba bahweyntii kale ee igala qayb qaadatay waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh